wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa waxa uu tacsi tiiraanya la u diray dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii shalay ku waxyeeloobay dhacdadii naxtinta lahayd ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa waxa uu ka warbixiyay shirki ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo u dhaxeeyay maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. waa kan wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo ka warbixinaya arintaasi. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan tacsi kaliya laaba u diro dadkii ku gooriyay qaraxii xara ka dhacay hotel Naasa Hablood kuwii ku dhaawacmana waxaan u baryaynaa Ilaahay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. dhacdo aad u xun bay ahayd taa marka si guud baan uga tacsiyeynaa dad badan oo mas'uuliyiin oo qiimaha ku jiray anaga dad nala shaqeeya ku jiray oo wasiirka arrimaha gudaha oo Madoobe Nuuno qaali aha waa kamid aha laakiin dad badan oo kala ku jira marka tacsiin wax tireynaa inta ka bacd waxaan rabaa inaan la wadaago in uu shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee la sugayay ee madaxweynuhu uu ku marti qaaday 28 bishan Oktoobar inuu ka dhaco magaalada Muqdisho uu saaka bilowday saaka ay wada quraacdeen wada hadalkiina odayaashii ay ku jiraan lagana wada hadlayo daamuraha waaweyn dalka yaallo ay kamid tahay arinta amniga oo hadda emergency inoo ah dalka taala iyo waxyaalihii kale oo taagnaa haddii alla idmo hadba wixii ka soo kordhana waa idin la soo socodsiin doonaa. marka intaas aan rabnaa inaan la wadaagno inuu shirkiisa rasmi ah oo saaka uu bilowday. waa mahadsantihiin. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Alfa warbaahinta Juba Shabelle News magaalada Jowhar.